saaxiibayaal ceebihii ugu waaweynaa ee isbuucan koonfur afrika laga diiwaangeliyey ayaan rabnaa inaan wax yar ka taataabanno inkastoo aan waqti badan aanan u haynin maadaama inta badan aanan barnaamijyadan anagu aanan ka hadlin koonfur afrika iska daa inay ammaanka shacab ama dad ajnabi ah ama dad sokolooti ah ama dad sharci haysto oo dalkan ganacsi kulaba inay sugdo iska dhaafe waxaa la leeyahay waxay ku guuldarraysatay inay sugto ammaanka dadka ciidamadooda ka shaqeeya ama amniga ka shaqeeyo arrintan ayaa soo baxday kadib markii isbuuc ka hor la afduubtay waa sida warbixinta lagu sheegtay laakiin afduub ma ahayn taas saddex boolis ah oo ka shaqaynayay dalka koonfur afrika waxaa la leeyahay isbuuc ayaa la raadinayay laakiin markaani waxaa la arkay ayagoo la dilay weliba boolisku waa soo qabsan waayeen xitaa waa dad shacbaa soo sheegay arrintan ayaa fadeexo weyn ku noqotay booliska dalka koonfur afrika iyo weliba waaxaha amniga ee kala duwan ee dalka koonfur afrika isbuuc ayaa la haystay kadibna qaarkood xitaa waxaa la sheegaya in lasoo dhigay boolis stationna agdooda oo boolisku haddii ay arki waayaan arrintan ayaa lagu aaneeyey inaysan jirinba isxilsaarid dhanka ammaanka oo ciidanka dalka koonfur afrika iska saareen amniga maadaama ay barteen lacagaha iyo laluushka iyo musuq maasuqa oo inta badanba ayba la shaqeeyaanba waaxaha amniga waxaa aada loo tuhmayay inay arrintani ka dambeeyeen dad nafsad ahaantooda boolis ah oo ayagana la toonsanaa inkastoo qaarkood la sheegay in la arkay ayagoo meyda ayaga nafsad ahaantooda oo arrintii marka lagu gutay laga dhammaaday markii hore arrintani isbuuc ka hor markii ay bilaabatay waxay aada ugu eedeynayeen ajnebiga laakiin hadda waxaa soo baxday arrintanu inaysan ajnebi shaqo ku lahayn arrintan ay la xiriirto arrimo crime ama dembiyo ka dhaca dalka koonfur afrika oo dad South Afrikaana loo haystay oo daba dheeraaday oo booliskan ay ku lug lahaayeen waxaana la tuhunsan yahay inay dadkaasu ka dambeeyaan dilka loo geystay saddexdan askari ee u shaqaynayay waxaa la yidhaha service ama South African Police Service cadii hore weli ma jirin ama maalmihii la raadinaya dad loo qabtay arrintan marka laga reebay in tuhun dhanka booliska uu jiray oo boolis la tuhunsanaa balse hadda saacadii lasoo dhaafay dad ayaa loo qabtay dad ay dembiyadooda ay ku lug lahaayeen soo xireenna waa loo soo xirxiray oo loo badinaya weliba ayagu inay yihiin dadkii ka dambeeyay balse waxaa la yaab leh dadkii in la qabtay oo laga dhex watay meel maxaan ku rahdaa magaalo ah ama meel kaltagis ay shidaal uga shubanayeen ayaa la watay isbuuc la haayey ama la qarinayay meydkooda xitaa kadibna bannaanka la iskaga soo tuuray oo micnaha markii dantii laga gaaray adiga wax caddayma ay waxay haayeenna laga qabsaday ayaa la iska soo tuuray qofkii la tuhunsanaa oo asaga nafsad ahaantiisa la islahaa waa sheekadan waa uu ka dambeynay meydkiisii asna lasoo dhigaa layidhi waa asna shakhsi kale oo boolise marka arrintan saxaafadda South Africa waxay u fiiriyeen dhanka xaqiiqda ah waxay dhaheen ma jiraan cid damaano qaadi karta amniga xitaa booliska iska dhaaf shacabka aab iyo lama maqlaan ayay marka ku noqotay waaxaha kala duwan ee dalka koonfur afrika weliba iyadoo